munaasabad lagu taageerayo musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah udub mudane Jamaal Cali Xuseen ayaa lagu qabtay hotelka Harawe ee magaalada Boorama. xafladani ballaadhneed ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro iskugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasi oo muujinayay sida ay u soo dhaweynayaan isla markaasina ay u taageersan yihiin musharaxnimada gudoomiyaha ee xisbiga mucaaradka ah udub ee mudane Jamaal Cali Xuseen. ugu horeyntii waxaa ka hadlay munaasabadaasi garayaqaan Caydaruus Cali Cabdilaahi oo ku hadlayay afhayeenka garabka dhalinyarada ee xisbiga udub ee gobolkani Awdal. waxaan u sheegay in ay munaasabadani u qabteen in ay aysan yihiin in mudane Jamaal Cali Xuseen uu noqdo musharaxa gudoomiyaha ee xisbiga mucaaradka ah ee udub. laakiin shucuurtayada iyo hamigayga dhalinyarnimo ee nagu jira aanu ka turjumayno mar walba waxaan maxad u celinayaa golaha fulinta xisbiga udub iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa waxa la aad baa u mahadsantiin kulli go'aan mar hadii la gaaro go'aan labaadna la gaari maayo marka waxay la tahay in Jamaal Cali Xuseen uu la taageero annaguna aanu taageersanahay gobolka iyo dhammaan Somaliland haddii aanu nahay dhalinyarta gobolka anagu inta baxnaa soo mari doono gobol walba aanu tagi doono ana kala soo hadli doono magaca waxaan baarsan yahay afarta area meesha ku qoran aan kala soo hadli doono lixda gobol ee Somaliland ka kooban tahay waxaan idinku mahad celinayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aabbaad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa kaloo halkaasi ka hadashay Faadumo Yaasiin oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga udub ee ku sugnaa munaasabadaasi isla markaasina waxay halkaasi ka soo jeedisay haweenka taageersan xisbiga udub ee gobolkani Awdal ay yihiin in mudane Jamaal Cali Xuseen uu isku soo taago musharaxnimada gudoomiyaha ee xisbiga mucaaradka ee udub. labaad waxaynu aad ugu faraxsanahay mudane musharaxeena mudane Jamaal Cali Xuseen oo aynu gobolkeena Awdal horumar iyo wanaag aynu ka rabno insha Allah ta'ala ku guuleysan doonana waxa kale oo aynu halkan ka dhiirigelinaynaa inaynu nahay dad u soo jeeda horumarinayna Awdal gobolkooga rabana musharaxooga mudane Cali Xuseen waxaanu ku leenahay ku soo dhawow Awdal oo adigu leedahay iyo gobolkaaga dhalinyarta anaguna garabkaaga ayaanu taagnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi lagu taageerayo musharaxnimada xisbiga mucaaradka ah ee udub ee mudane Jamaal Cali Xuseen ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarta ee xisbiga udub ee gobolkani Awdal Sharmaka Xuseen Xasan. waxaanu ka sheekeeyay taariikhdii iyo guulihii xisbiga udub uu soo hooyay intii uu talada hayay. waxaanu sheegay in mudane Jamaal Cali Xuseen uu yahay shakhsi ku haboon jagada gudoomiyaha ee xisbigan. aad iyo aad aniga farxadii ah oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay baaqi ama codsiga aan u dirnay musharaxa dhalinyarta ah ee Jamaal Cali Xuseen oo naga soo aqbalay codsigeega ka dhalinyar ahaan gobolka Awdal. waad ogtihiin oo maxay xisbiga udub waa xisbigii dimuqraadiyadda Somaliland Faras dhaqaajiyay waa xisbigii koowaad ee doorasho kaga guuleystay Somaliland ee loogu sacabtimo isagoo cod aqlabiyada ku guuleystay doorashadii ka dhacday geeyiga Somaliland waa xisbiga labaad ee mar labaad xisbigii lagu aasaasay jamhuuriyadda Somaliland xisbigii koowaad ee la aasaasay ayuuna ahaa waana xisbiga saddexaad ee aad aragtaan sida anshaxa asluubta karaamada leh ee uu ku wareejiyay xilkii lagala wareegay doorashadii dhaweyd wana kuna wareejiyay mudane Daahir Riyaale Kaahin madaxweynaha hadda talada haya Axmed Maxamuud Maxamed Siilaayo waa xisbi dimuqraadiyadda dalka iyo danta intaba maxay ahaydeen daneeyo xisbiga. Khadar Maxamed Xasan Xidigta News magaalada Boorama.